haddaynu su-aal isweydiino maxaa sababi kare keensan kara inaynu ilaahay dartii u oyno dhowr sababood baynu tilmaami doonaa sababta koobaad waa inaad geerida xasuusato ka gadoonkaad adduunka ka gadoomayseed u gadoomayso aakhiro waa inaad xasuusato inaad ka dhimanayso xoolahaaga iyo ubadkaaga iyo gurigaaga iyo maalkaaga sharaftaaga iyo magacaaga iyo maamuuskaaga ka geeriyoonayso mara cad lagugu duuduubayo gurigii 6 qol ama 5 qol ama 4 qol ama 3 qol ama labadaba ahaa ee quruxda badnaa ee dhisatay mararka qaarkood waxaa laga yaabaa kajada ama haddii qof ilaahay waxsiiyaa tahay qolka gaadhkuu fadhiistay dibadda in la yidhaahdo maydkiisa xaggaa geeyo inaga maydha sariirii halkaa in lagu dhigo qolka waashmaanka dabeeta lagugu maydho inta marada cad lagugu mususuqo lagu qaado halkaa lagu tuuro inankaad dhisay ee xoolahaaga dhexlayay $5 oo jeebada uu ku sitaa hadday qabrigaaga kaga dhacaan isagoo iilka ku dhigaya oo kugu dhigaya kaaga tegi maayo intuu boor ka tumu soo qaato jeebada ku soo ridanaya halkaa inaad ka fikirto waa meesha degaysa aakhira ugu horeysay waa meesha ugu argagaxa badan waxaad ka fikirtaa halkaa marka lagu dhigo malaa'igta baa ku imanaysa oo ku weydiinaysa su'aalihii waa laga fulayaa jidhkaagii ciidda cunaysa kadibna waxa laga yaabaa in aboorka iyo dinxugu ay quutaan 3 shaba aanu jidhkaagii baaqi ahaan xaaladda markaad ka fikirteen si caafimaad qabto uga fikirto waxa laga yaabaa qalbigaagii inuu burqado oo kooydo xumaantaad samaysay waxa ka mid ah sababaha walaalayaal akhrinta quraanka la akhriyo loo fiirsado ama dhageysiga haddaanad garanayso sida loo akhriyo inaad dhageysato oo aad ku tadabburto oo fiirsato quraanku shay qalbi jilciyo oo ka weyni ma jiro haddaad si kastoo qalbigaagu adiga quraanka aad akhrido haddaad ka garanayso suurad kaliya ku celceli adigoo degan si degan u akhriya xuruuftiisa u fiirsanaya qalbigaagu waa damciya oo dilmaynaysa laakiin markaad kaligaatay imaka maxaa quraanka khushuucdiisa inaga hortaaganba waxay sooranaysaa jus quraan akhri ma seejir baa soo dhacaya ama guruubad ku jirta ama meel kale waad yeereegaysaa haddana 2 sadar baa akhriyaysaa haddana waxaad soo saaraysaa fariin kale haddana mid kale ku soo wacaya waxaad moodaa dambigeeni in jeebada inoogu riday waanay adagtay intaad misaaj soo gashood moobilkaba baktiiso dam ka siiso in halkaa soo fadhiistaa way adagtay qof ka tegay uun baa sameynaya inuu silent ku xidho quraankiisa markuu akhristo eegto wixii fariimay u yimaada iyadoo ay adagtayba xilligan aynu ku jirno in masjidka lagu nagaado oo la fadhiisto aad bay u adagtayba waxa laga yaabaa salaad subax masaajida suuqa ugu dhow ku xaafadaha iska daayay ee dadka badan joogaan 4 qof 3 qof 5 qof baa ku soo harayo ilaahay xusayo inta kale ama hurdi ku noqonaysa ma siixanaysa waa inta salaada subax timaadaba salaada subaxna masaajida yaa yimaada safka hore barkii ama safka labaad ama safka saddexaad oo waliba in go'antay waa 3 saf oo waxla waad arkaysaa ama waad soo gali kartaa masaajida qaar oo buuxa aad bay u yariin laakiin xaafadaha qaar baad arkaysaa masaajidoodu salaada subax iyo salaada duhur waa isku mid way buuxaan ilaahay inoo kaalmeeyo subxaanahu wa ta'aala taacadiisana allah inoo kaalmeeyo cabdilaahi mas'uud buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamida ku yiri quraanka iyo dulakhi cabdilaahi buu yaaba wuxuu ku yiri ma adigii lagu soo dejiyay baan ku akhriyaa waxa rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxaan jecelahay inaan cid kale ka maqlay ugu dul akhri quraankan ku dul akhriyay buu rasuulkuna wuu dhageysanayay oo dhuuxay alayhi salaatu wasalaam illa an arkay ama la igu baraarujiyay inuu rasuulku leeyahay halka ku daa waxa kamid ah sababaha walaalayaal qubuurta la booqdo dadka dhintay oo la siyaartaa qalbiyada jilcisa hooyada iyo aabaha awowga iyo ayeyda jaarkaaga iyo qaraabadaadii xabaashi la galiyay marka tagto eed guryahoodii iyo maalkoodiina ama jaarlata ambaad haysata adiga laftaada qalbigaagu u dabciyaa halka inaad ku dambeynaysaa ogaanaysaa sibay wax inoo wataan kibir baa nafta si ugu jira laakiin qofku hadduu soo dabaalo nafta soo dabaalo wallahi way toosnaanaysaa waxa kamid ah sababaha walaalayaal qofku haddii uu iskaba waayo asbaabtaas oo dhan inuu ooyo waa inuu isku dayaa inuu iska ooyo ama sheekh quraan akhriya aad dhageysato ooyo la ooy ama qof daaciyo cibaado wado ooyo la ooy inaad iska ooyso si uun aad hunta iska keento iyada lafteedu waa darajo sare Umar ibn Khattab wuxuu radiyallahu anhu waxaan u imid nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakr ooyaya dabeetana waxaan ku maxay idinku ooyay rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam wixii ay saaxiibada ifareen oo ah 70kii maxbuus in laga qaato madax furasho
ayaan ku ooyay ilaahay aayad quraan ka soo dejiyay suuratul anfaal kadib wuxuu yiri ishaaga waxa la ooyaysan intaan loo sheegin haddaan helo oohinna waan ooyay hadii kale oohintiinaasan iskala kiin oohin doonaa waan raacin doonaa markii loo sheegayna Umar wuxuu yiri waan ooyay rasuulkuna muu inkirinta kaleey salaatu wasalaam walaalayaa wadaad iyo wabin rag iyo dumar waxayna saaran inaynu qalbigeena jilcino haddii qalbigeena aynu jilcino ilaahay inaynu hoggaansanaa way inoo fududaanaysaa waxa qalbigeena ka baxaya kibirka iyo isla weynida haddii qalbigeena uu dabco kibirka ka baxaya kibirkuna laba arrimood iska saaran yihiin waa dadkoo la liidiyo xaq oo qofku aanu hoggaansamin ilaahay dambigeena ha dhaafo kuwa qalbi jilaysanaya ilaahay dartii oo iyo taacis ku daana Allah inaga dhigo xaq Allah ina waafajiyo ilaahay cadawgeena ha jabiyo ilaahay cadawgeena ha jabiyo meel kasta ay joogaan iyo luqad kasta ay ku hadlaan iyo midab kasta ay yeeshaan ilaahay haynoo hiiliyo madaxdeena ilaahay ha gargaaro garabkooda ha galo la taliyaal fiican Allah u yeelo ilaahay la taliyaashooda qaar taacadiisa ku hagaa ka yeelo wixii taaciyo wanaagana Allah ugu kaalmeeyo khayrkana Allah waafajiyo waxa ugu weyn kitaabkiisa inay nagu maamulaan Allah waafajiyo inay kitaabkiisa inay ugu xukumaan taacada ilaahay inay nagu hogaamiyaan rabbana aatina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك